waxyar aad tafaasiil ka bixinaya anigu soo noqonaya dhagajilo iyo bulshaawi iyo kooxda fandhis baan dhamaan صح bal faahfaahin ka sii dadka ina daawanaya ee showgaaga sugaya in badan oo Soomaali oo xaafada isla iyo guud ahaan Nairobi ku nool way sugayaan showgaaga oo wala hadalaya marka adigana tafaasiil ka sii insha Allah horta muxuu ahaa show baan oo dhacayo habeenka jaceylka 14 bisha marka waa ani iyo fanaaniinteeda dhamaanteen waan isgarab joognaa habeenka marka insha Allah habeenka la soo wada baxreer Nairobi fankayga Nairobi ka bilowday marka one more time baa lagu celinayaa marka I see you guys insha Allah aad iyo aad baan waxaan soo weynaa xariib gubaad waxaan shacabka reer Nairobi ugu baaqiyaa waxa inoo balana 14 bisha kooxda fandhisbaan fanaaniintii kale oo iyaguna noo imaan doona oo xaliim hadda igu soo horeysay Axmed Saki oo soo dhaweyn doona iyaguna sidoo kale gudoomiyaha kooxda waa kan Al-Ustaad Maxamed Abdullaahi Diiri Bushaawi ku soo dhaweynaya insha Allah Bushaawi soo diyaarnta haye waxaan aad soo dhaweynaynaa oo aan halkan isugu nimid dhamaanteen si aan soo dhaweyn lahayn walaaladeen fanaanadeenna qaaliga Xaliim Gobaad iyo walaalkeen Al-Ustaad Nabil Bulle oo show kule magaalada Nairobi maalinta jacaylka 14 bisha February iyo hoolka la yiraahdo Sarkazi Dome waxa show kula jira fanaanka weynaysna Axmed Saki Nimcaan Hilaac Muhaashire Xamdayar iyo kooxda Fandhisman iqrayray adigu wixii aad ka tagay fanaaniin aad u badan waa showgi waxaan oran karaa waa showgi fanaaniinta ugu badan ay ka qayb galayaan ee Nairobi ka dhacaya marka yaanu jiseegi ma oran lahaa showgaasi waa habeenka 14 February iyo halkii showidaan ku dhigi jiray Nagara Sarkazi Dome aad bad ma santiin qiimaha si taageerayaasha Xaliima iyo Axmed Zaki ay ugu diyaar garoobaan qiimaha habeenka waxa lagu soo galay showga 2,000 shilin oo kaliya oo shilinka Kenya waa inta way qiimo heesa badanna way jiraan iyo waxyaabo badan ay ku qancaan dadka wax badan baan u diogna nabil balka waran maanta imaanshahaga Nairobi wallahi imaanshahayga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxay soo dhaweeyay asxaab tira badan fanaaniintii groupkii kooxdeedii abanadeedii marka aad baan ugu faraxsanahay waxaad qayb ka tahay Xaliimo groupkeeda iyo Axmed Zaki heesa badan waad u laxamaysay oo waad u sameysay qaybaad ka tahay adigana showga anigu kule martiin baan asxaabtayda soo booqday laakiin ha groupka Nairobi Finland Gulesimba Safwan Hala Axmed Saki Xaliim Gobaad Nasiib Yare Axabi walbadi Xamsa Xadaari dhamaantood baa anigu Nasiib Cali waxaan halkan ka soo dhaweynayaa fanaanadeena qaaliga Xaliim Gobaad Axmed Zaki legend the one and only my brother waxaan dhihi karaa Nabil Bulle marna walaalkiya isagana halkan aan ka soo dhaweynayo waxaan leeyahay Nairobi bishaaro showga la qaban doono waxa waa showga ugu ballaarnaa show la qabto abid dharkii cascasaana waa soo xiranaysaan intii is jeclaadna waxaan ku yiri intii isku kacsaneedba way heshiin doonaan haduu Ilaahay yiraahdo kala yalaab Axmed Zaki wuu soo socdaa Nimcaan Hilaac wuu soo socdaa Xamdayarna way soo socotaa Fandhisbaanna dhammaan way wada joogaan looma kala harin hoolka waa Sarkazi Dome Ingara weeye lacagtana waa hala yar baan kaga dhignay 2,000 shilin weeyaan fanaan oo aan wali aan dhicin wali waa score aan hore u dhicin waaye heeso cusub baan la wada qaadi doonaa haduu Ilaahay yiraahdo iyo intii hore u jecleedeen waqtigaas kale laab aad aan idin salaamayaa Xaliim Gobaad waxaan leenahay Nairobi ku soo dhawow iyo ustaadkeena weyn Nabil Bulle waxaan leenahay soo dhawaada si sidaan uga soo qayb galnay aan idin soo dhaweynay baa naga daacada ma sha Allah saasoo kalena insha Allah waxaan rajeynayaa 14 February inaan sidaan dib u dhacdo insha Allah waqti qurux badan la wada qaato waqti fiican la wada qaato maanta waxaan soo dhaweynaynaa meeshan anagoo dhan waxaan iskugu imaanaynaa soo dhaweyno Xaliim Gobaad fanaanadeena weyn qaaliga iyo Ustaad Nabil Bulle anagoo Fandhisbaan iyo dhammaan asxaabta Nairobi waxaan ku leenahay ku soo dhawow Nairobi welcome to Nairobi waxaan soo dhaweynayaa walaashay Xaliimo waxaan leeyahay welcome to Nairobi habeenka 14 February-ga yaan la moogaan lagana maqnaan macnaha waxba dhar cascas xataa yaan la isku shidan fiyoore le aniga hala ii keeno taas le waay
anigoo qaali aragsana waxaa soo dhameynaya walaashay xalimo gobaad soo dhawow habeenkaas yaa la moogaan af Soomaali ma aqaani السلام عليكم حالك soo dhaweynaya fanaanadeeda weyn xalimo gobaad baa macaan ku soo dhaw magaalada Nairobi waa habeenka jacaylka 14 February inoo balana welcome waxaan soo dhaweynayaa fanaanadeeda qaaliga marna aan taageero aan aad ku jeclaa walaasheeda xalimo gobaad baa waxaan ku leeyahay karibu Kenya ku soo dhaw thank you marka hore fanaanadeena qaaliga soo dhaweynayna waxaan leeyahay fanaanada kaliya taageero oo taageero weyn oo ahay antan waa aamin laan horteeda taagantaa marka waan soo dhaweynayaa soo dhawaa waxaad weydiin lahayd haddaad wax weydiin lahayd waxaan ku oran lahaa waxaan halkan taaganahay soo dhaweynaynaa walaashay xalimo gobaad waxaan ku leenahay ku soo dhaw magaaladaadii aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa intan oo qof aad ku soo dhaweynaysaa insha Allah Nairobi waxaan u sheegaynaa taariikh 14 inay qodbaha lagala baxayo tiirarka aad iyo aad halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa walaashin xalimo gobaad we love you iyo walaalkeen nabiil boole hala baasha la habeenkaas بسم الله halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa walaasheena qaaliga magaceeda aan xalimo ma aqaan aan ku baxsay aayaha nolosheena welcome to Nairobi waxaan leenahay welcome to Nairobi showga waxaan leenahay reer Nairobi hadaan nahay dad nasiib la nahay maalintii jacaylkii xalimo gobaad bas la helnay iyo Axmed Seki iyo heesa jacayla marka waxaan leenahay welcome to Nairobi walaasheena ugu qaaliya in badan baan ku sugaynaa maanta banaan ku joognay aad baan ku jecelnaa waa maadsantahay thank you maxalda Sharif Allah xalimo gobaad taageeradeeda weyn ka mid ahay aad u taageeraa my sister soo dhawow waxaan ka shideynaa xalfadaada xalimo gobaad in the house alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh أنا مقعد ويا محمد حريت وعملت شيء شرف وفعنا بدنا نوصل وينا ما يسيستا حليمة جوات وهي سيدة أدو حسين جري ما تني فرصة دي تهينا أجستاجو مركو حنلي ويلكم تو نيروبي شو هذا إن شاء الله وديسينا وكلك عيننا دولة إن شاء الله نبيل بولا ويلكم تو نيروبي هاوينك 14 فبراير يلا موجعني إن شاء الله thank you ما شاء الله waxaan soo dhaweynayna walaasheena xalimo gobaad in badan aan sugaynay haddana 14 ka ma sha Allah waa iman doonaa oo ka soo qayb gal doonaa saa ugu soo dhaweeyna garoonka isla qof inuu hari waayo ma ya taa sharciga ka yaalo waqti badan la sugaayay insha Allah